maxay tahay sababtoo u fashilmay kulankii ergada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u dirsaday ee mucaaradka iyo sidoo kale maxayse ahayd fariinta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u dhiibtay ergadiisa oo ay ka mid ahaayeen ugaas iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya halkan ayaa kugula wadaagayaa ee daawadayaasha sharafta leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ergadii uu dirsaday islamarkaana u diray ee mucaaradka fariimaha u dhiibay waxaa qayb ka ahayd inuu diyaar u yahay inuu dhulka uu dhigo talada ee dalka isagoona sheegay in diyaar uu u yahay wax walba inuu dhulka iyo sidoo kale miiska wadahadalka uu soo saaro laakiin shuruudda adag ee hordhigay ee mucaaradka waxay ahayd inay baajiyaan banaanbaxa ay qorsheenayaan sidoo kalena ay dib ay ugu laabtaan guryahoodii oo halkii ay ka yimaadeen iyo ciidamadii ay la yimaadeenna inay dib ula laabtaan madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku amray madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale mucaaradka madaxdiisa inteeda kale ayuu ku sheegay keliya in loo baahan yahay inay dib ugu laabtaan ee guryahooda ay ka yimaadeen iyo sidoo kale inay joojiyaan banaanbaxan oo ku sheegay inaysan qabanin isagoona ku sheegay inay tahay mid halis ku ah amniga ee dalka gaar ahaan ee amniga caasimadda fariinta ayay ahayd inay dib ay ugu laabtaan ee guryahooda iyo sidoo kale inay baajiyaan banaanbaxa mucaaradku waa ay diideen oo way ku adkayseen taa oo sababtay in ugu dambeyntii uu fashil uu ku soo dhammaaday ee shirkii u dhexeeyey labada dhinac xog rasmi ah oo ay heshay TTN Somali TV waxay xaqiijisay in kulankaasi oo xitaa laysku mari waayey kadib inkastoo dadka qaar ay u dhigeen in kulanka uu ku soo dhammaaday isfaham iyo sidoo kale in shuruudaha qaarkii laysku fahmi waayey laakiin sida TTN ay xaqiijisay kulanku wuxuu ku dhammaaday gebi ahaanba mid fashil ah iyadoo ergada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu dirsaday ay ahaayeen dad saameyn leh laakiin ay ku soo fashilmeen wadahadalkii ay ugu tageen ee mucaaradka hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iminkase wax natiijo ayaa laga gaari waayey sidoo kalena mucaaradku waxay sheegeen in banaanbaxan goobta ay doonaan inay ka qabsan doonaan islamarkaana aysan u aabi yeeli doonin cid kastoo soo hor istaagta ee banaanbaxooda iyagoona ay sheegeen inay ka dhabeyn doonaan meelaha iyaga ugu muhiimsan oo goob kastoo ka tirsana gudaha caasimadda degmo kasta inay ka qabsan doonaan halka dowladda ay sheegtay in goobo gaara ay u cayimtay haddii banaanbaxayaanna ay ka diideen iyagoona ay sheegeen inay ka mudaaharaadi doonaan dhammaan gudaha caasimadda gudaha afarta dhinac ee magaalada caasimadda muqdisho waxaa yaalo ciidamo kala duwan iyo sidoo kale gaadiid dagaal